kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maawalada dhallaanka waa ka daawataan marka soo booqataan channeladaanu ku leenahay YouTube iyo Facebook ee dhalaan koreeye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekada toddobaadkan idinku hayana waxay ku saabsan tahay boqorada ayaan iyo shaqoolka ayadeed anse ku bilaabo waxa la yiri bari hore waxa jira boqor iyo boqorada caanaha waxay ka talin jireen qasri iyo boqortooyo ballaadhan oo aan habeen iyo maalin leedkoodu dami jirin waxay hayeen boqortooyo caan ka ahayd deegaanka ay maamusho waxaana ka talin jiray boqor iyo boqorad aad loo jecel yahay maalin waqti ay boqoradu akhriyeysay buug ayay tamaniday waxay ilaahay ka barideen inuu siiyo gabadh iyada gadaasheed boqorad noqota maalmo kadibna waxa boqorada u yimi war farxad leh mid ka mid ah shaqaalaha boqortooyada oo la ordaysa warqad ayaa boqorada u timi waxay u sheegtay in warqad ka timi dhakhtarka ay caddaynayso in boqoradu ay uur leedahay ilaahna u aqbalay ducadeedii warka wanaagsan ayay boqoradu la wadaagtay boqorkuna si ba'an ayuu ugu farxay warka wanaagsan waxayna u duceeyeen ilmahooda in ilaah ka dhigo mid iyaga gadaashood anfaca dalka iyo dadkaba inay noqoto boqorad la wada jeceliyey waxay hooyaduna ugu ducaysay in gabadheedu ay noqoto mid aqoon iyo cadaalad ku xukunta gadaasheed boqortooyadooda maalmo kadib waxa u dhashay ilmaha waxayna noqotay gabadh waxay u bixiyeen ayaan hooyadeed sanooyin tiro badan ayay waxbari jirtay wax kasta oo nolosheeda ka caawin kara caqabadihii nolosha ku hor yimaada ayay bartay wakhtigay da'da yarayd iyana waxay noqotay gabadh caqli badan oo tartan kastoo aqooneed guul ka gaadha wakhtiga ayaa isbedelayey sanooyin badan kadibna waxaa yimi war muruga leh maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa dhimatay hooyada dhashay boqorada ayaan iyadii aabaheedna si ba'an ayay uga murugoodeen warka ku saabsan geerida hooyadeed balse aabaheed ayaa u caqli celiyey waxau yidhi kani waa xaq dhammaantiin aan ku xukumanay maalmo ay tacsiya muruga u taalayna waxay markii dambe iilka u galbiyeen boqorada ayaan iyo aabaheedba aad ayay uga murugoonayeen arrintan balse sanooyin badan kadib waxay mar kale ka soo kabteen murugada iyo warwarka ay ku reebtay geeridii hooyadeed boqorkuna sanooyin badan kadib waxau go'aanku gaadhay inuu guursado gabadh ka caawisa nolosha boqortooyada sidoo kalena hooyo u noqoto gabadhiisa yare ayaan waxau soo guursaday gabadh uu moodayay inay tahay tan ugu garashada badan leh deegaanka uu boqorka ka yahay arooskooda ka gadaal waxau bari gabadhii uu soo guursaday inantiisa aad ayay u soo dhowaysay ayaana mar kale ayay faraxday waxayna u qaadatay in geeridii hooyadeed ka gadaal mar kale ay heshay gabadh kaloo hooye uga noqota rajaynimada balse wax kasta waxay hayeen kuwa sidaas ka duwan maalinba maalinta ka dambaysa gabadhii boqorku soo guursaday waxay noqotay mid muujinaysa jacaylka iyo baahida ay u qabto inay urursato hanti badan waxay guriga iyo qasriga boqortooyada keensatay muraayad weyn oo ay ka faashato waxayna mar kasta weydiin jirtay muraayadan sharfanay waayo qofka ugu quruxda badan uguna qalbiga wanaagsan boqortooyadeena muraayaduna waxay mar kasta ugu jawaabtaa adiga weeye boqoradaydii iyana intaas ayay ku faraxdaa waxay dhanka kala bilowday urursiga maal dahab iyo xoolo fara badan waxay dadka ay boqorada u noqotay ku soo rogtay cashuur badan markii dambena waxay ku qasabtay in waxay haystaan oo dhan laga soo qaado xataa beeraleyda saboolka ah marba marka ka dambaysay boqortooyadii ballaadhneed ee barwaaqada ahayd ee gabadhani soo gashay ayaa noqonaysay mid abaar ah sidoo kalena waxaa dadka ay boqorada u noqotay ay dhammaantood noqdeen kuwa sabool ah xoolahooduna inta badan waxay uga qaadatay cashuur markii dambena waxaa deegaanka boqortooyada ka bilaabmay colaado la doonayay in boqorada iyo boqortooyadaba lagu burburiyo maalin maalmaha ka mid a waxaa boqorku u baxay dagaal si uu boqortooyadiisa u difaaco waxaana boqortooyada soo boqday wiil dhalinyara
وبقر أها كانت تنجري بقرتوية ديغان كلا كتالا وحو بقرتوية وكاني هانتي يمالو دوني إني كد فعدان بقرتوية دا وحسين لي يابلو لكل ما أيان إسلام مركزنا وحو قادي جعيل يكالقع لي يابله بل ما هو بين qofka ay tahay markuu soo galay qasriga boqortooyada waxa uu la kulmay gabadhii boqorku qabay waxa uu sheegay inuu soo gurmaday una sidee hanti iyastahay ay boqortooyadooda ku difaacdaan waxa uu kaloo weydiiyey gabadha u arkay ee boqortooyada joogta ay tahay boqorad balse waxay ku tidhi maya ma aha boqorad aan aniga ahayn halkan kuma noola kadibna intuu midaas aaminay ayuu iska tegay ayaana taniyiintii aabaheed ka tegay waxay nolosheedu noqotay tociriiri ku nool inta badan qol cidla ah ayay kelideed ku garaaci jirtay muusig oo ku madadaalan jirtay gabadhii aabaheed soo guursadayna wax taageero iyo talaa midna kamaysan heli jirin umana gelin booskay hooyadeed ka baxday ee markii hore moodiisay inay u geli doonto gabadha ayada u ah boqorada waxa marba marka ka dambaysa la sii fogaanayay jacaylka ay u qabto maalka iyo xoolaha sidoo kalena muraayada ay ka faashato ayay habeen iyo maalin weydiin jirtay waa ayo qofka boqortooyadeena ugu wanaagsanay balse mar dambe ayaa wax kasta isbedeleen waqti ay ku raaxaysanaysay daawashada xoolaheeda ayay weydiisay muraayada su'aal la mid midii hore waa ayo qofka qasriga boqortooyada ugu wanaagsan waxayna ku tidhi muraayadu waa boqorada ayaan maalintaas laga bilaabana qalbiga ayaa jabay waxayna colaad aan dhammaad lahayn ay u qaaday gabadha yar ee boqorada ah ee ayada u tahay waxayna go'aan ku gaadhay inay nolosha dhaafiso si boqorada kaliya halkan ku nool ay iyada u noqoto waxa uu yeedhay nin ugaadhsada waxay la siisay amar waxay ku tiri sanduuqan qaad waynaad ku soo rido wadnaha ayaan oo adii keento iyadana nolosheeda aan dub loo arag waxa uu ahaa amar culus oo uusan diidi karaynin waqti boqorada ayaan ku madadaalanaysay beerqasriga boqortooyada ku dhex taala ayuu u yimid ninkan ugaadhsadihii waxa uu ku yidhi waxaa jirta deegaan qurux badan oo ku hareeraysan qasriga boqortooyadeena midkaas waanad weligaa arag waxaan jeclaan lahaa inaan maanta ku soo tuso waxaan hubaa inaad ka heli doonto boqorada ayaan waxay ahayd tun naxariis badan waxa uu maqashay hadalka uu ku yidhi ugaadhsadahan boqortooyada u shaqeeya marna umaysan qaadanin arrintani ay tahay shirqool nolosheeda waxyeeli karaa kadibna hore ayay ka raacday muddo dheer ayay sii wada socdeen markii dambena waxay gaadheen ay iyo kayma cidla ah halkaasoo ahayd goobta uu doonayay inuu shirqoolka iyo dhagarta loo soo dhiibay uu ku fuliyo ugaadhsadahani si lama filaana ayuu mar keliya ula soo baxay midi uu doonayay inuu boqorada ku dilo ayaa intay naxday haydilin fadlan haydilin isna waa ka naxay oohinta gabadha yar ee rajada ah waxuu ku yidhi anigu ma rabin inaan ku dilo balse kan waxa uu ahaa amar ay aayadaa isoo siisay waxayna doonaysaa inaan ku dilo wadnahaagana sanduuq ugu keeno haddii aan sidaa samayn waayana aniga ayaa malgan balse waxaan ku siinayaa talo waa inaad aaddo duurka weligaa waa inaanad dub u soo noqon kuna soo laaban boqortooyada haddii aad ku soo laabato deegaanka boqortooyada labadeenuba waynu dhimanay ugaadhsadihiina waxauu markii dambe dilay xayawaan duurka joogay inta uu qalay ayuu ka soo saaray wadnaha wuxuuna u keenay gabadhii qumayada ahayd waxuu ku yidhi waan soo dilay ayaan waana kan wadnaheedii iyana aad ayay ugu faraxday balse xaqiiqdu sidaas ma ahayn ayaan waxay la baxsatay nafteeda iyadoon aqoonin meelay aado muddo dheer ay ordaysay waxaa gobolku ugu dhacay dhul beero cidla ah waxay ordaysay habeen iyo waqti roobda-ayay iyadoo murugaysan markii dambena waxay si lama filaana ugu soo baxday guri ku dhex yaalla kayma cidla ah dhexdiisa albaabka ayay garaacday balse cidna kama furin markii dambena kelideed ayaa soo gashay waxay aragtay guri cidina aysan joogin isdhex yaalla waxay tidhi waa ayo cidda halkan ku nool
kaymahan cidlada dhexdooda balse markiiba waxay go'aansatay inay guriga ka shaqayso ay hagaajiso dhammaan guriga ayay hagaajisay waxayna karisay cunno waxay tiri ciddii doontaba ha lahaato waase inaan anigu waajibkayga qaataa wanaag ayaa wanaag laga helaa waxay samaysay cunno ku filan iyada iyo cid kastoo guriga timaada markay guriga hagaajisay markay guriga timi ay cunno karisay ayay qayb cuntay intii kalena waxay ku sharaxday miis waxayna ugu tala gashay in ciddii timaada ay cunto way daalanayd waxaana isaga seexatay mid ka mid a sariirihii guriga yaalay markii gobolku dhacay waxaa guriga ku soo carraabay 7 muruqmaal oo u badnaa dhalinyaro waa 7 muruqmaal oo ka xoogsada ayda cidlada markii gobolku dhacay ayay guriga ku soo carraabeen balse waa mucjiso ayay la kulmeen markay arkeen sida gurigooda loo hagaajiyey iyo cunno nooc walba ka kooban oo miiska guriga u taala waxay isweydiiyeen waa iyo cidda maanta hawshan idiin qabatay hadday wax yar hara u soo socdeen waxay arkeen gabadh qurux badan oo mid ka mid a sariirahoodii jiifta mar kale ayay yaabeen midkoodii ugu weynaa ayaa yidheen sugno tan iyo intay ka soo toosayso waxa jira waxaynaan ogayn ayaa mar dambe soo toostay waxay uga warrantay wixii ku dhacay waxayna ka raali gelisay in gurigooda amar la'aan ku soo gashay waxay u sheegtay inaysan haysan wax kale oo aan ka ahayn inay halkan soo gasho waxay u sheegtay inay tahay boqorad ka gadaal markii hooyadeed dhimatay in aabaheed uu soo guursaday gabadh kale midaasoo ay moodaysay inay hooyo u noqon karto balse markii dambe noqotay qumayo nolosheeda khatar gelisay waxay uga warrantay sidii islaanta qumayadii ay nolosheeda iyo nolosha boqortooyadii ay ku noolayd bay khalkhal u gelisay sidii dhammaan dadkii saboolka ahaa ee boqortooyada ku noolaa ay uga guratay xoolahoodii markii dambena colaado ay uga bilaameen boqortooyada iyadana nafteeda ay khatar gelisay oo ay ka soo carartay intii aad uga naxeen ayay ku yidhaahdeen hadda laga bilaabo halkan ayaad ammaan ku tahay annaga ayaad nala noolaan kartaa mana jirto waxaad ka cabsato boqoradda ayaana aad ayay ugu faraxday naxariista iyo wanaagga ay u muujiyeen 7 muruqmaal markii subaxiisii shaqo tegayeen ayaa midkii ugu weynaa kula teliyey inaysan cidna albaabka ka furin qof kasta isan aqoon haye intay tidhi ayay guriga isaga laabatay balse dhanka kale islaantii qumayada ahayd ee aayada u ahayd boqoradda ayaan oo daawanaysa wadnihii ay ku ridatay sanduuqa ayaa mar kale muraayadii ay ka faashan jirtay weydiisay su'aal la mida midii hore waayo qofka qasriga boqortooyada ugu wanaagsan uguna qurxoon waxay mar kale muraayadii ugu jawaabtay waa ayaan intii aad u yaabtay ayay tidhi sidee ayay ku dhici kartaa sawtan ayaan mar hore dilay maaha sawkan wadnaheedu ku jira halkan balse waxay ogaatay inaysan ayaan dhiman ay weli nooshahay markana waxay go'aan ku gaadhay in iyadu ay gacanteeda xabaasha ugu dirto ayaan waxay ka fikirtay dhammaan shirquuladii ay ku dili lahayd balse waxay dooratay mid ka ah inay siiso midho sumaysan kuwaasoo nolosheeda oo dhan kuwaasoo ka dhigi kara inay dhimato ama nolosheeda oo dhan ay seexato waxayna adeegsatay sixir iyo shardi ah weligaa inaad jiifto oo aanad hurdada ka soo toosin taniyo intaad ka heli doonto boqor kalgacal kuu qaada oo noloshaada badbaadiya shardigaas oo qumayadu u arkaysay mid aysan weligeed heli doonin ayaan nolosheeduna sidaa ku dhammaan doonto iyada oo sida tasallad iskana dhigtay islaan da'a oo waayeela ayay ku garaacday guriga boqoradu ku noolayd waxay ku tidhi waxaan ahay islaan da'a jidkan ayaan marayey maalmaha ayaan soconayey waxaanay haysa baahi iyo haraad daran mana aqaano meel aan u sii socdo haddaad siiso cunno iyo biyo aad ayaan kugu mahadnaqi lahaa waxay ahayd gabadh naxariis badan ee waxay siisay cunno iyo biyo kadibna waxay ku tidhi waxaad tahay qof wanaagsan waad i wanaajisay qofkii ku wanaajiyana wanaag ayaa loogu abaalgudaa balse ma haysto waxaan ka ahayn midhahan aan salladda ku sido beertayda ayaan ka soo gooyey haddii mid ka mida aad tufaaxayga cunto waxaan hubaa inaad ka heli doonto markii ay dhadhamisay mid ka mida tufaaxi ayay mar keliya suuxday
oo miyir beeshay dhulka ayayna ku dhacday. Islaantii qumayada ahaydna intay faraxday oo u aragtay in shirqoolkeedii guulaystay ayay baxsatay. Markii gobol ku dhacay waxaa qasriga boqortooyada ku soo laabtay 7 muruqmaal waxayna arkeen ayaan oo dhulka taala. aad ayay uga murugoodeen. Si kasta oo ay malaynayeen inay ku caawin karaan way isku dayeen balse marnaba kuma guulaysan midda. Maalmo badan way la tacaalayeen xaaladeedana. Markii dambe waxay dhigeen dhalaweyn oo ku taala goob bannaan midaasoo cid waliba ka dhex arki karta boqorada Huruda. Waxay boqorad laga jecel yahay dhammaan deegaanka ay ku nooshahay. Dhammaan noole kasta oo deegaanka boqortooyada ku nool ayaa soo booqan jiray xataa xayawaanka. Maalmo kadib waxay 7 muruqmaal maqleen inuu jiro wiil dhalinyaro oo boqora kaasoo qalbi wanaagsan lehna aqoon caafimaad oo dadka bukooda caawiya. Mid ka mid ah 7 muruqmaal ayay u direen isagoo ordaya ayuu ugu tegay kaymaha halkaas uu ka ugaadhsanayay. Wuxuuna u sheegay inay caawimaad u baahan yihiin. Gabadh boqorada oo ku jirta kooma sanooyin tira badan waa uu soo raacay wiilka boqorkii. Markuu isa soo dultaagay ayaana markiiba waxuu xasuustay in gabadhan ay tahay midii uu arkay taasoo u hayay jacayl uusan cid kale weligeed u qaadin. Markuu isa soo dultaagay ayaa waxaa markiiba si la yaab leh indhaha u soo kala qaaday boqorada oo u soo toostay. Dhammaan dadkii ag joogay ayaa mar kaliya farxay. Waxayna la yaabeen sida mucjisada ah ee koomada iyo hurdada ay sanooyinka faraha badan leh boqoradu ku jirtay ay marqura si lama filaan uga soo baxday. Midani waxay ahayd shardi iyo shuruud ay ku xidhay islaantii qumayada ahayd oo sixirkeeda qayb ka ahaa. Midkaas oo ay uga dhigtay inay hurdada ka soo kici karto kaliya haddii ay hesho boqor iyada jacayl u qaada. Waxayna u arkaysay inaysan shardigan weligeed heli doonin ayaan iyo 7 muruqmaalba waxay si wada jira ugu mahadnaqeen boqorka nolosheeda badbaadiyay. Maalmo kadibna warka ku saabsan in boqorada ayaan ay ka badbaaday shirqoolka ay aayadeed u dhigtay waxuu gaadhay qumayadii aayada u ahayd. Maalintaas laga bilaabana waxay ka baxsatay qasriga boqortooyada. Ayaan iyo 7 muruqmaal iyo boqorkii badbaadiyeyna waxay ku soo laabteen deegaanka boqortooyada balse shirqoolka iyo dhagarta ay doonayso inay qumayadani ku burburiso nolosha boqorada ayaan intaa kuma ekaan doono balse waxaanu sheekadan iyo kuwa ku xigaba ka baran karnaa in markasta dadka wanaagsani ay ka guulaystaan kuwa xumaha wada. Intaanu mar kale ku kulmayno sheekada boqorada ayaan waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. waqtigu ha idin wacnaado.